وإبراهيم عليه السلام قصص قرآن كوي كبوحان قصص كلها إيمانية لكن إياكو عبرة قادنا يا مانتا سلانتيسي هاجرة إيانينجيسي إسماعيل أفغان توكو قاتب وليمي دي أفر برود حدود من مسجد نقصو كسوق القدس إلى وحو كان أرض الحجاز بالكلل وبيئي بعد عن لهين والرب كوير يهين ودماء يكون نولين وحتى قيل هذا استعانة لهين هل كانت إبراهيم دي هاجري إسماعيل أيا اللي يري كان نقو اسكال نقو اللي يري وأمر هاجر دادا ودادا المها هذا قبصة وقبصته بيه انتنا كوها يا هو لا دادا ولا دادا بعد انتنا كو سدايا قبصة وقبصتي مرقا بوري سلامة ومكة هلقى مكة كنت هلا ويان دادك حجيي با يقانيه وريستا كويلك iyo rafaadka iyadoo zamankeena maanta nafaqyo iyo wadooyin iyo wax walba lagu diyaariyo biyo qabow hadana maalinta xujaydu ay yimaadaan waxay yimaadaan iyagoo daalan bay yimaadeen oo madoobaday meeshaas oo asbaaban lahayn ka warama barigaas halkaas Ibraahim Haajara kaga dhaqaaq markaas Haajara ka dabaadasay ku tir Ibraahim ma amar ilaahay ba markaas uu ha ilaahay nimada yahay iska socod ku tir إلهي هي نما ضيعي هوين إذا إيمانك كورما كل سوني ذا ربي كذا يكون قبته إيجا حالة ما أنت مسلمين تعالم وكنا لكو قياس أسباب تلقونا ولا له أكتيدا ما تعلو باذي بي ما هيستو وهل ما هيستو ما شو وادي عطش رأي مناد مركي بدأ عدو رأي الشام دون أيام حبين مران مويان مالين ما مري كرام بلي hadday maalin ay ciidada ugu soo baxdo oon bay u dhimanayaan halkaas ayaa nabi ibraahim lagu yiri haajara iyo ismaaciil halka kaga dhaqaaq dadna adiguna qudus ku noqo yaa ilaalinaya marka yaa ilaalinaya yaa arsaaqaya yaa daryeeda ka dhabaaya ilaahay baa ka dhabaaya laakiin waa usrad qalbigooga macrifada ilaahay baa degtay halka inaka maanta zamankeena muslimiinta توحيدك حربك ونوض لي الله أسرة داس إيمانك يا توحيدك قلبك وجودك قلبك إذا الله يضيعنا إبراهيم مر بعد يا أمر إلهي أنا أقول دكتور نقول نقطي لما ضيع يا صعب يا كترين سجل نقول فلان بورتا قراش يا مرجوج إبراهيم استاجي وقرت حتى عبدو صوت المؤمن إنه سن أركين دعاء وكدعي واقع القرآن إلهي ما هو شيء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون دعاء سوحة وكبل أبي دين بكبل أبي أدوية كما بلابي إنك مركان دعاء سنة إن دعاء دينا وحن كبل أبناء أدوية ده له العقيسي إلهو سنة كان عيالك امتحان كان مرة يانها باصان الدنيا ده إلا إله إلا ودي سوي في عنتهاي لكن هدايته الرئيسة دينته الله الرئيسية إبراهيم عليه السلام وجد ما شوريك يصدقي إنه بيلا عنتهاي إنه بيلا عنتهاي إنه هلا إنه كويس واركيا لكن دعاء وحو كبلا بالدين بكبلا ربنا ليقيموا صلاة وحقرنا يا hadday reerkaasi salaada ay leeyihiin hadday diin leeyihiin hadday ilaahay xiriirkiisa leeyihiin adduunyadana way helayaan nolosha qofka muslimku diin bay ka bilaabataa adduunyo kama bilaabanto ninba ayaa nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam oo yidhi yaa rasuulallah rabbigay markaan baryaaya maxaan idhahdaa ii sheeg qul allahuma qfir lii وارحمني واهدني وارزقني وتدعى بيده قل وحاتر هذا اللهم الله يوم اغفر لي إله ودمك قداف وارحمني إله وإن حريص واهدني إله ويهنوني وارزقني إله ويرزاق أرزاق الدواء عريقك قلنا يا مانتا إما عيشة النبوات يي ومع صدى بدن وياه لذلك النبي يقول حوت الماما يا أمدا طريقة صحدة اللي قلت وعي سوا طريقة دي أول ومحي
ilaahay dambi dhaaf weydiiso waayo dembigaagan faraha badan leh ayaa nolosha ciriiri kaa gelinaya waxaa nolosheenu maanta bilaa barako la noqotay tijaaradii way badanaysaa tacliintii way badanaysaa wax walba way badanayaan maciishadiina way sii adkaanaysaa dhakhtaradii way badanayaan hosbitaaladii way badanayaan farmasiyadii way badanayaan daawadii way badanaysaa bukaankii muu yaraaday mise uu batay bari sheega hosbitaaladii way bateen dokteeradiina way bateen daawadiina way badatay dadkii bukay ma yaraaday mise way sii bateen tacliintii mutacalimiintii way bateen laakiin noloshii maciiri bay sii galaysaa mise fudeyd bay noqonaysaa bal iga jawaab cidhiidhi adduunyadii way badanaysaa dhismihii uu badanayaa ganacsigii uu biirayaa tujaartii way badanayaa wax walba way badanayaa laakiin maciishadii way sii adkaanaysaa barakadii bay naga maqan maxaa nolosha maciishada maxaa ciriiriga gelinaya waa kasratu dunuub dunuubtaa badatay macaasidii baa badatay khafladii baa badatay diin la-aantii baa badanaysa fadhigii masaajida ayaa yaraatay ictikaafkii masjidkaa yaraaday majaalis alghafla badatay majaalis alghafla deedna markaasa noloshii waxay noqotay cidhiidhi lidalika nabiyadu calayhim asalaatu watasliimaat meeshay ducada ka abbaarayaan u fiirsada rabbana la yuqiimu الsalaa fajcal afidata min annaas warzuqhum min athamaraat midho la cuna ku arsaaq midhaha u dambaysiye waa arsaaqadii diintii u horreysiiyey cibaadadiibuu ku xojisiiyey in ummadda ilaahay aqalkiisaas waa beytka ilaahay ee muxaramka ay qulubta muslimiinta ilaahay u soo jeediyena uu ku labeeyey ducadii midho la cuna ilah ku arsaaq buu yihi xataa beera ma odhan midho la cuna ilah ku arsaaq asbaabtii nolosha markaa ilaahay ka siiyey haajara maa u zamzam baa loo soo saaray safar reer yamaneedaa soo waacday reerahoogii bay soo rareen way la degeen makata almukarama waxay noqotay magaalo ganacsiga shaam iyo yaman udhaxaysa oo reer shaam markay imanayaan badeecadda shaam laga keena maka la dhigaa badeecadda reer yamaneed markay badeecadda doonayaanna maka yimaadana makay ka qaataan halkaa markay magaaladii maka ay marayso tuulo biyihii ay dhex yaallaan oo biyaha dhex yaalla tuulada baayac mushrikii baa ka socda ayaa lagu yidhi jibriil baa u tegay ibraahim oo waxaa lagu yidhi rabbigaa wuxuu ku amrayaa islaantii haajare iyo ilmaheygii ismaaciil ee maka dhigtay inaad ka war doontood soo aragtaa lagu amraya orada u teg soo arag buurtii uu gadaasheeda ibraahim markii uu ka ducaynayay markuu buurtii iskor taagay muxuu arkaa tuulo waa meeshuu kaga tegay islaaniya ilmo yar waxay noqotay hayjad biyo leh baad leh magaalo ah oo dhisan baayac mushtarkiina ka dhex socda jibriil baa ku yidhi yaa ibraahim rabbigaa wuxuu ku amrayaa inaad haajariya ismaaciil isha aad ka soo aragta bas faraskaagan aanad ka daadegin kadibna waxaad ku noqonaysaa qudus yaa jibriil xaaskaygii weeyaan waa ilmahaygii ismaaciil inaan arkaan rabaa on la fadhiisto on warayste may inaad faraskaaga ka degto amar uma haysatid waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat faatamahun ilahay baa qur-aanka inoogu sheegay dadka ilaahay jecel yahay adduunka dusheeda waa la ikhtibaara waa la imtixaama sidee lagu garan hadduu qofka haddaan la imtixaamin sidee iimaankaaga lagu garan marka qofka muslimka ee muminka ilaahay xaggiisa imtixaan loogaga keenana waa marka la doonayo qofku qalbigiisu ilahay inuu ku xidhmo ha argagixin ha quusan waa marka la doonayo in iimaankaagu adkaado in yaqiintaadu aad tidhaahdid ilaahay baan haystaa waxba iga xuman maayaan yaan haysanaa allah baan haysanaa xaalad adag markay qofka muminka ku timaado waxaa la doonaya inuu qofku yidhaahdo ilaahay baa macayga ibraahim calayhi salaam intaasoo imtixaano fara badan ayuu maray waxaa ka mid a imtixaankiisii u dambeeyey
وحكمنا امتحان نبيسي ilmaha Ismaaciil uu 9 jirka uu ku dhalay ayaa markii dambe lagu yiri qaado sida neefka xoolaha loo bireeyo u soo biree magaaladii buu soo galay Ibraahim Ismaaciil waa kan namari aabo xagee saaxiibkii baa kula kulansiinay namari buu ka yiri uu qaaday halka mina ee xujaydu dhagaxa ay ku tuuraan dhagax tuurka halka markay marayaan ayaa ayuu arkay Ismaaciil oo dadsan markaasuu ku yidhi aabba maxaad arkaysaa aabba waxaan u jeedaa oon arkayaa nin baa igu leh waa lagu gowrac odagu ku gowracayaa ka baxso markaasuu yidhi aabba waa ibliis weyna dhagaxa ku tuur buu ka yidhi waa halka xujaydu ay dhagaxa ku tuuraan ramya aljimaar halkaa markay marayaan buu la hadlo wuxuu ku yidhi falama balaga macahu sacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaam أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هل كأمر كي مرة ينبو كوير آبو وعنكم من أيماني بو كبرين إيه أذيك بالبحي كنا تقول أولا لهي بو كيري مرقا سور آبو أمر كي لهي بوحي بو كيري وفلي أني كان واحد أركي دون تاين أنا هاي أتكيستي صبر بدنين أنا هاي بدركي دون تاين وصابرين تكمده المها إبراهيم كما دل لباتن جر بل إسماعيل وحو كل لا سكاشن جر وبيادو مركي المها كنت جر كل لا بل لا ور المها هو كان دغ لما كنت جر بكل لا سو ما درك المها هو دغ جعل يو غعنته ون هيست يا لو دعاي ور ما كنت جر بكل لا كان waa ka sii dayn leh igu markuu konton jir ilaa inta ka horeysay ilaahay u baduna siinin ee konton markuu maray ilaahay ilma uu siiyo ilmaha ka 20 jirka ku dhalay waa uga duwan yahay maxaad u malaynaysaa nabi 9 jir ilaahay ilmaha uu ku siiyay oo haddana la leeyahay sida neefka xoolaha loo bireeyo ilmaha uu soo biree waxa ajiiba ilmahan aabihii kuma akbar baarin laba qiso ajiiba quraanka ku taala labaduba waa ina nuux iyo ina ibraahim qisadii nabi nuux inankiisa markii ummadiisa la halaagayay waa kii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga wixii ku raacana doonta saar ehelkaagana doonta ugu yar inay fuuraan waa kii nabi nuux inankiisa u yeeray ku yiri qaala yaa bunayya irkab macna ولا تكن مع الكافرين قال يا بني إنك يجي رايو اركب معنا لنصفون ولا تكن مع الكافرين كافرين تبعوا لأنهم كيري قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي حتى آبا مؤرم بالليل الماء به ويري الموالد كيس ويري ومركو ويري آبو أما هو يوروايا هذا علامة الشقاوة بعلم دليهن وعلامة الشقي وعاقل مهاصي سيدو جوابا لك قرانيا إن النوح جوابته بحيه إيق إن إبراهيم جوابته بحيه أفرس إسماعيل وحويلي يا أبا تفعل ما تؤمر أبا أمرك الله أمر بوحي بوكيلي لكن نوح ينقيس وحيري سآوي إلى جبل يعصمني من الماء حتى آبا مورن بالليل دلنا يرى عن شيء يعدي والدته ما أنت أي نول هنا والد تاعو مركو كويا حتى هو كويا دنا هو معانا يده هو معانا هذا أبا كلها لنا هي أبا معانا ده بمعاتري هذا علامة عاقل الوالدين ويانا نوح إنكيس بدباده وهو ريا إنكينا بدبادتي وسكدي ده وحول بورتا سنبيا كفوليا فحال بينهما الموج فكان من المغرقين إلى هيري يقول لما ذا هذا الكاس وإذا سريا يركي موجده الطوفان كايا دحمري لأن إنكيس وحي إلى هيك يلكوي غرق مي كوي كان وحال لغو يري إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وحن كم منام أنا كبرين يا سيدنا نافق حولها الله برايو يا أبا محي قلت تهيب كيدي قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أبا أمرك إلهي بوحي ويال أنا قاعدين نقطنا
waxaad heli doontaa inaan ka mid ahay kuwa saabiriinta adkayste. labada aabba maaha bay culimmadu leeyihiin, maaha labada waalid, labada aabba maahayna waa labada hooye ayaa kala duwan. ina nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo ilaahay cilaaqa aan la lahayn, hooyo nebi nuux aanan rumaysnayn, hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeyga ku lahayd odaygan qaylaya warkiisa ha maqline hor danahaaga qabso. ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cillada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahayna dayici maayo ibraahim oo da iska soco. laanna ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyadda hooyadaa saameysay tarbiyadda aabbuhu ma saameeyo. inta badan ilmuhu ma hooyuu la joogaa mise aabbo? midkuu la joogaa hooyuu la joogaa. hadday hooyadu hagaagsan tahayna ilmuhu way hagaagayaan, hadday dumarku naga baanaadaana ciyaalku way baanaanayaan. waayo dugsiga ugu horeeya mujtamacu ka soo baxaa uu wax ka soo barta waa hooyada. haddii dugsigaas uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya u noqdona mujtamac diin danaynaya soo bixi doona. hadday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga halaabo uu naga xumaado, ilaahay nagama xumeeye, waa haweenkan u jeeday. hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdana way naga qalloocsameyn ogaada. marka dumarkeenna, xaasaskeenna, gabdhaheenna, hablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaagiisii baa ku xidhan. gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta, laba qolo, dumarka iyo ubadka. labadaabay naga soo galaan. odayaasha dan uma leh, ragga dan uma leh. gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas. waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan, laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaa bay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan. lidaalika nebi nuux calayhi salaam islaamtiisu maadaama gaaladahayd oo gaalnimada qarsanaysay tarbiyadda inankeyga iyadaa saamaysay. ismaaciilna aabbihii kuma agbarbaarin, hooyo ku agbarbaaray, tarbiyaddii hooyadii baa saamaysay. hooyo caynkeeya, hooyo ilaahay ku xidhan, hooyo cidna markii lagaga dhaqaaqay tidhi ibraahimo ma amar ilaahayba haa ilaahay nima dayacayo socabay ku tidhi. ilaahay waa ilaaliya. ibraahim inankiisii ma gowricin. ibn qayim aljawsi raximah llah wuxuu yidhi maqsuudku ma ahayn ilmaha gowrac, maqsuudku wuxuu ahaa jacaylka alla mooyaane jacaylada kaloo dhan qalbigaaga ka sar. qalbigaas waa meesha ilaahay addoonka uu ka eego weeyaan. ilaahay cadamadiisa, ilaahay maxabadiisa, ilaahay jacayladiisa, ilaahay weynidiisa mooyaane qalbigaa jacaylo kale in lagu arka lama ogolo. dadku inay ilaahay ku xidhmaan oo dadku diintan ilaahay, xadhigga ilaahay qabsadaan waa muhimadda ilaahay nebiyada u soo diray, waa muhimadda nebigeenna loo soo saaray calayhi salaatu wasalaam. ilaahay haddaad amarkiisa aada ilaalisid halun qisaska qur-aanka aynugu filanba. ibraahim calayhi salaam dab intoo loo shiday baa lagu turay manjaniiq, baa lagu turay manjaniiq min makaanin baciid. marka ibraahim markuu sii dhacayayna malaa'igtoo dhan baa u timiday. markaas ugu dambayntii jibriil baa yimid calayhi salaam. alaka xaajiya ibraahim buu ka yidhi ama ilayka falaa wa ama ila allahi fabalaa. yaa jibriil ma adiga may maanta adiga waxba kaagama baahni, laakiin rabbiga waan u baahanahay buu yidhi, kama maarma ilaahay. ibn cabaas wuxuu yidhi hadalkii u dambeeyey ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu tuuray u lahaa xasbiya allah wa nicma alwakiil, kaafiyahaygu waa ayo waa allah weeyaan. ilaahay waa qaadir calaa kulli shay. ilaahay awood wuxuu u lahaa dabka inuu biyo ku baktiyo, awood wuxuu ilaahay u lahaa inuu dabka dabeed ku kala kaxeeyo, laakiin ilaahay sunnada ma isticmaaline qudraddu ilaahay isticmaalayo wuxuu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim. dabkoo holcaya oo sifadiisii aanan laga zulin ayaa ilaahay amar wuxuu ku riduu yidhi ibraahim dushiisa waxaad u ahaataa qabo u haw bas iyo nabadgelyo iyo qabo. siduu doona yela waa ilaahay. dabkii uu holcayaa
sifadiisii uu leeyahay, laakiin ibraahim calayhi salaam xaadii jirkiisa ku taalla ma gubi karaayo. bal nolosha adduunyada ugu fiican ibraahim waxay soo martay baa la yidhi 40 maalmood uu dabka ku dhex jiray.